magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa lagu qabtay kulan ballaaran oo lagu dabaaldigay in lagu aasaasay maamul cusub oo lagu magacaabo Saylac Lukaye State. Kulankan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Oslo ay isugu imaadeen dad culimaawidiin, cuqaal, dhalinyaro, caruur iyo dumar kuwaasoo lagu taageerayay maamulka state-kan cusub. State-kan ayaa ah mid ka tirsan sida caadiga ah Somaliland kadib bay yiraahdeen markii aanu aragnay habka Somaliland ay u dhaqmayso state-kiga ee dadka ku nool kuwaasi oo aan ka helin bay yiraahdeen fasiilaad badan oo nolosha ku saabsan ayaana waxaanu go'aansanay inaanu magacaawno state cusub oo lagu magacaabo Saylac Lukaye State. Mar haddaba maamulkaasi go'aanka ku gaaray in state-kaas magac cusub ay u bixiyaan ayaa waxaan kala kulmay shakhsiga loo doortay inuu hogaamiyo ahna madaxweynaha state-ka Lukaye Saylac State. mahad waxaana uu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى حسن واد ما سنتهي فرصة تاني إنه هلو on كش جو حلقة كان تي في عالمي رويال تي في international إن فرصة إن نقطة انترفيو جوهري اللي جا قاعدي نيجوا مهد علنيو حلقة كدب أساس كدولة جولات كان عصب سيلع لوهاي ستيت waxaanu ka soo shaqeynay muddo 8 bilood ah hadii aan dib u durugno waqtiga aqooniyaanka waxgaradka culimaawidiinka iyo haweenka gobolka Saylac Lukaye State oo ka kooban Saylac Lukaye Xariirad Heemaal Booq Abduqaadir Doon Jiri iyo Looya Cadaba intaasoo degmood duruufaha 12 sanood oo hoos joogeen maamulka Hargeysa laga taliyo anagu u arkayno inuu waxba noo soo wadin darteed ayaa dhulkii duruufo adag oo baahi kamid tahay biyo li'i waxbarasho li'i caafimaad darri meeshii xarumihii caafimaadka oo aansan jirin haweenku inay marka ay dhalayaan ay geeriyoodaan nasiib darro annagoo joogno qarnigii 12aad 2012 waan ka gilgilanay haddaanu nahnay shacabka ka soo jeeda Saylac Lukaye State of Somalia sidaa darteed waxaan walaalkay Xasanow bishii koobaad 7deedii annagu waxaan iskugu imanay haddaanu nahnay culimaawidiin waxgaradka iyo dhalinyarta iyo haweenka gobolada ka soo jeeda magaalada tan Oslo maalin sabti ay ahayd sidaan jeclahay telefoonana adduunka iyo caalamka conference ku yeelanay halkaas baan hoosta ka xariiqnay inaan gobolka aan ku dhawaaqno magaciisa uu yahay aniguna la ii doorto madaxweyne ku meel gaara oo magacayguna waxa weeye injineer Mahad Abiib Maxamuud dhalinyar anoo ayaa dalka kan imid waxna ku bartay noloshaydana ku samaystay waana u mahad celinayaa xukuumadda Norway in fursada ii siiyeen waxaan dhulka ka heli waayay kulanada noocan oo kale ayaa ah kulamo Soomaalida qurbaha inta badan ay ku aasaasan kuwaas oo lagu magacaabo state cusub oo markaas ka dhashay qayb Soomaaliya kamid ah kanina uu noqon doono sida ay sheegeen kii ugu dambeeyay markaa taariikhdan ugu dambeysay lagu aasaasay magaalada Oslo iyadoo mas'uuliyiinta ka tirsan qaaran kala kulmayna ay sheegeen in sababta loo sameeyay ay tahay in laga bixiyo dhibaatooyinka haysta dadkooda ku nool geygaasi oo qaybo kala duwan oo gobollo iyo degmooyin ah waxaana ay sheegeen inaysan marna ku qanacsanayn xukuumadda maamusha Somaliland oo markaa xaqeedii aan siin intii ay xukunka hayeen oo 12 sano ah. Xasan Saciid Royal TV Oslo Norway.